بسم الله الرحمن الرحيم. qaaradda afrika waxa ay ka mid tahay qaaradihii ugu horreeyey ee ay bili-aadanku degaan, waana qaaradda labaad ee adduunka ugu weyn. masaaxadeeduna waxa ay gaadhaysaa 32 milyan oo kilomitir oo iskuweer ah, amaba 11 milyuun oo mayl oo iskuweer ah. waxaana ay oogada dhulka ka dabooshaa boqolkiiba 6%, halka ay ka daboosho oogada dhulka ee qallalan ee aan badda lahayn boqolkiiba 20.4. waxaana ay afrika ka kooban tahay 54 dowladood. daba waxaynu daawadayaal isku dayi doonaa in aynu sheegno sababta loogu bixiyey magaca afrika amaba ifriqiya. inta aynaan u gudagelin barnaamijkeenan, waxa aan jecelahay in aan tilmaamo afrika iyo ifriqiya in aanay wax micno ah ku kala duwaneyn, ee mid kastaba ay tilmaamayso kala duwan ee ay ku dhawaaqaan bulshooyinka caalamka ku nool, gaar ahaana carabta iyo reer galbeedka. culimmada taariikhda wariyaa waxa ay tilmaamaan dhowr sababood midkood inuu ku baxay magaca afrika, waxaana ay soo wariyaan asbaabahan hoos ku qoran. taarikhyahanada koox ka midii waxa ay sheegaan in ay romaaniyiintu waa hore kusoo duuleen qaaradda afrika, waxaana ay ugu yimaadeen dad cawaan ah oo ku nool amaba degan godadka. sidaas awgeedna waxa ay u bixiyeen ifriqa, oo magaca intiisa hore ee ifri ay la micno tahay dadkii deganaa, halka ay qaana la micno tahay dhulka amaba godadka, taas oo ay ujeedada magac u tahay dadkii deganaa godadka. sidaas ayaana uu ku baxay magaca ifriqiya. waxaa kale oo la sheegaa finiiqiyiintu in ay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee qaaradda degay, waxaana loo bixiyey ifri oo u dhiganta kuwii boodhka badnaa. magacaasina kama uusan hadhin ilaa markii dambe qaaradda oo dhan loo bixiyey. sidoo kale waxaa jira aqoon-yahano tilmaamay masaaridii hore in ay kelmadda afruwika ay u yaqaaneen waddan amaba dhulka hooye, halkaasna uu ku arooro amaba uu kasoo jeedo magaca ifriqiya amaba afrika. intaasun kuma eeka doodaha ka taagan sida uu ku baxay magaca qaaraddu, ee waxaa jira dad u yaqaana magacan in ay bixiyeen yunaaniyiintii, waxaana ay sheegaan in ay yunaaniyiintu u yaqaaneen afrika oo la micno ah bilaa beref amaba dhulkii bilaa qabowga ahaa. sidaasna waxa ay sheegaan inuu ku hirgalay magacaasi. ugu dambeyntiina waxaa jirta dood odhanaysa boqorkii ifriqiis bin dinmanaar ama ifriqi bin qays ayaa waa hore duulaan ba-an kusoo qaaday qaaradda afrika, waxaana uu ahaa boqorkii ugu horreeyey ee ka taliyey qaaradda. sidaas awgeedna isaga ayaaba loogu magac daray afrika amaba ifriqiya. haddaba daawada, maxay kula tahay adiga inuu magacaasi ku baxay, amaba doodahan kala duwantee ayaa aada u aragtaa in ay suurtagal tahay? haddii aad ku cusub tahay janaalkeenan dhacdo side horena loo odhan jiray sooyaal, fadlan sabskrayb saar lana wadaag saaxiibada.